السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا قيمها بدن يكحرن جنرال كامل تكنولوجي اسكسو نقد وناكسن إن شاء الله تعالى ما أنتو حينسل دراسي دونا 10 كتابات ينكو برنين ويب ديزايننج خاصة HTML iyo CSS إن شاء الله ما أنت سدح توبيغا نسلقا دونا هدو على إدمو توبيغا كواد وحنون نقد دونا فلوت بروبرت فلوت بروبرتسku wuxuu noo suurtagelin lahaa navigationadan yaala liftiga aynu geey karno right geeskaas kale aynu geey karno sidoo kale waxaynu soo bar doonaa display property sidaan u maamul lahayn navigationadayna siday u soo muuqan lahaayeen waxay radayna soo sharaxno display properties waa kana display propertiesku hore waxa loo qaybiyaa saddex qayb display properties kaadu inuu soo muuqdo blog ahaan iyo sidoo kale inuu soo muuqdo inline ahaan marka aynu doonayno inaan display properties aynu soo bandhigno as blog waxaan isticmaal doonaa wax lagu magacaabo display properties sidoo kale marka aynu doonayno inaan soo bandhigno as inline ahaan line ahaan waxaan isticmaal doonaa display property inline halkan isticmaal doonaa display properties blog sidoo kale waxa jiro display properties non middle dhaho oo naga qari doona labadaanba practical ayaan isku qari doonaa haduu aan leedmo sidoo kale waxaynu arki doonaa pseudocode classes pseudocode waa maxay practical ayaan isku arki doonaa waxaynu isla tagi doonaa Visual Studio Code-ka intaan hore ayaan soo daraasaynay fadlan haddaan ugu cusub tahay channel-ka subscribe noo saar casharadii ka hor soo daawan dib u soo daawo عشرة كائن نسيب ويقول دونا سلسوا عدونا يكسر مركلة اسكسو نقد ونكسن إن شاء الله تعالى وحين بلاو دونا عوان كاين كواد فلوت بروبرتس كاين وحين كوب معمول دونا نافيجيشن هذا أي نصرت تقول نافيجيشن هذا هنا navigation-ada waa kuwan ayagu anchor waxaynu sameey doonaa class aan u maamulno qayb kamid ah navigation-ada aan u maamulno waxaynu sameey doonaa ayaan soo dhaanay class-ku wuxuu noo suurtagelinayaa inaan maamuli karno qayb kamid ah website-kayna aynu farta ka bedeli karno color ka bedeli karno si allaala si aan u baahno aan u maamuli karno div ayaan dhigi doonaa kadib class ayaan sameey doonaa class-ku wuxuu bixin doonaa navigation kadib waxa muhiim ah difkaan sameysay class-kan hadda waxba kuma dhex jiraan inta ayuu ka xiran yahay waa inaad ka xirtaa navigation hoosteeda si aad u maamushid hadda waxay ka dhigan tahay waxba kuma jiraan balse markaan inta ka xiro waxaan maamuli karaa inta ku dhex jirto aynu save gareyno maadaama uu class yahay waxaynu qaadan doonaa navigation-kan waxaynu dhihi doonaa dot aynu soo saarno comment si aad u fahantid cashirka maanta meesha uu ka bilaawanayo cashirkayna maanta inta ayuu ka bilaawan doonaa dot ayaan dhihi doonaa kadib waxaynu dhihi doonaa navigation-nadayna floatkiisu waxaa noo geysaa maadaama ay hadda yaaliin سو جديد بعد وحو يلا نافيجيشن دنكا بدحة ليفت يلا وحينو قيدونا دنكاس مدو رايتكا وحينو ليه دونا نافيجي فلوت ايان ليه دونا كدي وحينو ليه دونا فلوت كو حانو قيسا رايت مادام واد ديالو ليفتي فلوت كو حالقي كراو كليا رايت ليفتي سنتر كهوير هورا يوسو ارقنا سيدو لوغي وحينو ليه دونا ريفريش سو جديد بعد navigation-adani waxay tageen dhanka bidixo dhanka midig afwan dhanka midig ay tageen navigation-adani iyo qoraalkayna ayaa isku dhex darsamay si aynu u kala sikino navigation-ada iyo qoraalkan isku dhex yaacsan waxaynu tagi doonaa Visual Studio Code-ka CSS-kayna waxaynu ku qori doonaa horta waxa muhiim ah in ogaatid meesha uu yaalo navigation-adana waxa ku xigo header-kan waxa ku xigo body waliba class lagu magacaabo container-kan asiga ayaan qaadan doonaa dot ayaan dhihi doonaa kadib container kadib waxaan dhihi doonaa padding top kor ka siko waxaad ka sigataa content pixel kadib waan save garay doonaa
soo jeedid bawakaasa waxaynu kala xakameynay navigation-kii iyo paragraph-ka aynu kala xakameyn navigation-kan hoos waxaa ka yaalo underline sida loo baabiyo underline-ka navigation-ada ayaan sii tigi doonaa kadib waxaan dhihi doonaa weliba ankarka ayaan sii tigi doonaa dot navigation is ankarada ankar markaan dhahno waxaan dhihi doonaa text declaration xariiq hoos ku yaalo uma baahnin nan iga saar soo jeedid ba hadda xariiqii hoos ku yiilay wuu ka baaba'ay halkaasa waxaynu ku baabi'inay text declaration nan ayaanu dhahnay display property soo usoo muuqanaya navigation-adan ayaanu ku maamuli doonaa waxaynu dhihi doonaa navigation-adayna weliba anchor kasii tag navigation is anchor displaygooda waxaad ka dhigtaa blog soo jeedid ba hadda wuxuu noqday blog ahaan way soo yeelin blog yani listis ayuu noqonayaa way soo yeelin halka ilaa inuu noqonayo ilaa markaa ka dhigna line ahaan ayuu noqonayaa aynu ku laaban koodka meeshan display blog dhahnayna waxay ka dhigaynaa inline soo jeedid ba hadda wuxuu noqday inline line ahaan ayuu noqday marka maadaama uu hore inline noogu ahay waxaynu ka dhigi doonaa blog ayaynu ka dhigi doonaa waxaynu dhihi doonaa blog waynu save garay doonaa halkaasa blog ayuu noo noqoyay ciwaankayna xigana wuxuu noo noqon doonaa pseudocode waa sida aynu u maamul lahaynay navigation-adan inaan hoover saarno markaa la taabto yani uu hoover noo yeelayo iyo waxaas oo dhan waxaynu ku arki doonaa koodka aynu isla tagno Visual Studio Code-ka waxaynu weli maamuli doonno waa navigationis weliba aan karkaa maamulaynaa waxaynu dhahaynaa marka 2 dhibic hoover markaynu dhahno background ayanu samayn doonaa background color caadi waa sii kartaa sida red oo kaleeto color name al dhahay kaas sidoo kaleeto waxaad isticmaali kartaa RGB sidoo kale waxaad isticmaali kartaa hexadecimal waxaa laga hormariyaa hashtag kadib waxaad sii doontaa 60 hadaynu dhahno waxay u taagan tahay black 60na waa iyadoo shortcut iyo longer 60 waxaa usoo gaabsan kartaa oo keliya 30 haddaad u baahan tahay inta ayaad ka bedeli doontaa color alarkarkaa saaranaysid anagu hadda waxaanu dhahaynaa colorka aynu u baahannahay waa 00FF92 colorkaas ayaynu u baahannahay waa inaanu ka hormarina ayaynu soo dhahnay hashtag hoover wuxuu suurtagelinayaa markaad dul tago inuu hoover cagaar saaro soo jeedid kaasa contact markaa kor tago hoover cagaar ayuu saarayaa waxaan isticmaalahayna waa pseudocode sidoo kaleeto waxaynu dhihi karnaa meeshaas aynu hoover dhahno ayaan waxaan dhihi karnaa visited active-na waa dhihi karnaa pseudocode-ka waxaa ugu muhiimsan link sidoo kaleeto visited sidoo kaleeto hoover sidoo kaleeto waxaynu ka xusi karnaa focus ayaanu dhihi karnaa hadda waxaynu baraatigareynay oo keliya hooverka aynu soo aragno linkiga intayna waxaynu ku bedeli doonaa link meeshan hooverka ayaan waxaynu ku bedeli doonaa link ama waxaynu dhihi doonaa active aan ku hormari doonaa waan save gareynaynaa
active-ka wuxuu ii suurtagelinayaa markaa keli ku dhaho inuu buluga soo doorto keli markuu ku dhahaa waxaa saaran soo jadiidba bulug ayaa saaran markaasaa keliga markaan dhahaa waxaa saaran bulug ayaa saaran contact sidoo kale markaasaa waxay suurtageliyey sudo code khaasatan active sidoo kaleeto waxaan dhihi karaa meesha active-ka aan soo dhahnay visited visited haddaynu dhahno markaa la booqdo oona ka baxno ayuu wuxuu saari doonaa kalarka haddaba wada saari laakiin markaaynu booqano hadda refresh waa laakiin hadduu ku yahay toos mid uu xiran page kaleeto markaad booqatid uu ka baxdid ayuu wuxuu ku noqon doonaa visited bulug ayuu saari doonaa hadda wax mis bedelahay maxaa yeelay navigationadan ayaa ah refresh waxba kuma jiraan wayna soo geli doonaa cashiradii xiga insha allah sidoo kale inta waxaynu ka dhigi karnaa aynu soo dhahnay focus ayaanu dhigi karnaa وهكذا فوكس أصيرنا مرة كده جديد ولا سيد كي عمل واين وحاول مهم سنو اللي استعمالها ماشي أنا يعني نقول تلد دونا مرة ويب سايت ديزاين جرين نسيت هنا استعمال شيء هوفر هنا استعمال هوفر أيام هذا كده جد دونا كلر كيس واسكت بدير دونا كلر قرحنا أيام صار دونا كلر كاو باند أيام صار كرتا kalarkaad u baahan tahay markaad dooratid kitib save garee control s dheh aynu isla tagno editorka browserka chrome aynu isticmaalahaynaa waa kaasaa kalarka wuxuu noo saarmay buluug xigeyn إن شاء الله تعالى عشر كاينة مانتي انت ينوغ هادونا فضلا دان وعصوبتو هادا نغصو بيرتي سبسكرايب نصار جنال كان عشرة نوع عشرة توتوريال أو تحرياله فضلا عشر كان عشرة دي كون ريادان صوت داوانين ديبو صوت داو كونو صوت نقود داو شد بقال كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته